hawlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko min xilqaaday eed qadiihoyo min xilqaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا برامج كتحراعة تلفزيون سمني ستيفي واتكدا ونيستان استوديو يسمى قارة مقدشة صوره وأنا محمد عبد العثمان فردارة وحا برامج جودهم بديرة دكو صار دونا حرمت التلفزيون الصوماليات ومانتا كو قبضت شير جرائد مقالة مقدشة كان هذا الشيء حالتها دلكو ومريو وجهرين وحا هالكاسي كهاللي جري حاج حسن oo ah gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed saaki oo subax khamiisa bishu ay tahay 16 sanadka 2020ka waxaan ugu talagalnay haddaan nahay xaruntii tala soo jeedinta Soomaaliyeed inaan ka sameeyno warbixin sanadeedkii 2019 waxyaalihii soo dhacay iyo wixii soo maray inaan ka sameeyno ملاحظنا كسبين ساق حقوق تلقى مرك إلى صوص صارنا وراق صوص صارنا بيبر كه اللي أرمها صارنا سي أمة الصوماليات أن وحسوسينه وحد دعي لواتوي كدعي فايدوي كدعي إيه حلين توديبا ساتت حقوق تلقى لمات إلى نارنتاس أن أمة النص جدينه دانك كلا سعيد جامع علي قرشيل أو gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa isaguna goobta ka hadlay isagoona qodob u dul istaagay war saxaafadeedka ay soo saareen dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel joogan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan sida gudoomiyuhu sheegay gudoomiye guri anagu sanad cusub baa bilaabmay sanadka كل إن وحلسك يراها هو واجب وحي دعينا laga soo tagana wax la tilmaamo waxa soo socdana kulay wixii wax laga oran karayna wax la sameeyo marka uu horeysa wada sanaan aniga gudoomiyaha iyo diinaari waa maqnaan muddo hadun baan isku soo noqonay anigu gaar ahaan waxaan rabaa ragayaan inaan salaan halkan uga diro qoladii aan ka soo tagay ugu horeyso asxaabta iyo Toronto joogto Kaldeesa iyo muxuu ahaa Ibi iyo Banaadir taasna waxaan uga goleeyahay xawayaan sida ay xarunta la soo jeedinta ay maaragtay xiriir toos u leeyihiin ama ka warqabka taa markaan ka soo gudbo maanta waxaan aad u jeclaysanay inaanu naraahno kelmadii ku haboona marka warku wuxuu ku kooban yahay war saxaafadeed oo maaragtay ambassador diinaar inoo akhrin doono laakiin Google dig waxaan uga dhigayaa waxyaalaha aan aad rabnay inaan uga hadalno waxa kamid ah sanadkan hadda bilaabmay iyo sanadka dhamaadkiisa kala wareegaysa sida uu wax walba ku qorshaysan hadii Ilaahay yiraaho waxay ahayd waa sanadkii doorashada la gelayay loona balansanaa in muxuu ahaa sida caadiga ahayd doorasho ay dhacdo waxaana ballan ku ahaa in doorasho la gaarsiiyo oo dawladda hadda jirta ay ahayd ballankeedu qolob waxay mar soo qabanaysay ay maaragtay in maamulka la dhiso qolob waxay ahayd inay one man one vote gaarsiiso hadda kulay gabagabay taagan tahay arrintaasna inay adag tahay one man one vote ayaa muuqata laakiin waxaan u daynaynaa dadka farsamada waxaan markaa xoojinaynaa waxay tahay qodobada ah doorasho hadii la aadayo doorashadu waxa ugu muhiimsan in nabad hada lagu galo nabad lagu aado tan xigtana dadka doorashada wada galaya
inay ka imaanayaan maamul goboleedyadii marka haddii maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe ay wax ka taagtaagan yihiin iyadana way adkaan doontaa hal waa jirtaa matalaadeeda inay iska leeyihiin aqalka sare laakiin aqalka sare laftigiisu waxaan qabnaa in arrintaasu ilaa hadda aan maaragtay sidii la rabay aan uga soo bixin dhalin nagama aha laakiin hadda jeer waa naga tusaalo aqalka sare ama shuruucdiisa iyo nidaamkiisu dhan baa ah in maamul goboleedyada ay matalaan marka haddii ay noqotay in muxuu ahaa doorashadii maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ay kala taagan yihiin wadda waxaan qabnaa anagu waan ku baaqaynaa qoraalkayga gudahana waa ku jirtaa in muxuu ahaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu la helo golo ay ku wada hadlaan oo maxay wixii jira si ummadda Soomaaliyeed loogu turo loogu naxo nidaamkii jireen aan maaragtay oo sharcigan soo dhiganay ahaa in wadanka la gaarsiiyo one man one vote si kale ku imaan mayso haddaan dadku wada jir iyo wada shaqayn aanay jirin marka halkaas fursaddan ugu muuqataan xarunta tala soo jeedinta waxay tahay in la helo wada hadal degdeg ah oo ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay fadhiistaan oo laga wada hadlo sidii doorashadu u dhici lahayd iyo guud ahaan wixii uun khilaaf dhexdooda ka jira anagu diyaar baan nahay lay suurtagal noqotana waa dhex maraynaa keliya maaha inaanu ku daawanano dowladaha ajnabiga oo nala joogo martida aynoo ah baan u daynaynaa inay inoo kala dab qaadaan wixii Soomaaliya arrinta dhex geli karo isku dayi karaan waajib baa ka saaran inay arrinta loo dhaqaaqo anagu haddaan anagu sameynayna in la yiraahdo maxaa u sameynaysaana hadda waxaan ugu soo loogeynaa arrintaas lagu jeclaada ama haddaan ugu nacaysaan anagu dadaal bay naga tahay waa sameynayna tan xigtana waxa weeyaan waa amnigu doorashada waxa furo u ah amni in la helo taa waxa ka sii horeysa siyaasad in la helo ku saabsan xagista wuxuu dhan waxa u ah siyaasad baa u ah in siyaasaddu ay hagayso amnigii muxuu ahaa dhaqaalihii maxaan ku yiraahdaa iyo mujtamaca hawshiisa bulshada wax walbaba marka baybarka gudaheeda ayaan taa u deynaya marka waxaan leeyahay xarunta tala soo jeedinta waxaanu ku adkaysanay tiro wixii taariikh soo jirtayna kolley baybarkan taladeeda iyo wixeeda u deynaya laakiin anagu gaar ahaan intayadii waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad aanu leenahay wadanka hadda maqaamka banaadir ayaa sidaan maqlaynay saaran muxuu ahaa xarunta maxay ahayd golaha shacabka taalo oo dhawaan raba in laga doodo iyada laftigeedu waxa ay fiicnaan lahayd muddo laga sugayay muddo dheer baa laga sugayay kulli ragayga halka fadhiya aniga kala gudoomahay waxaan ahayn ragii consulkii u dambeeyay markii la dhisay ragii soo dhisay rag kamid ahaa waa ahayn markii qolada maxaakiintu iimaanayeen consul 69 baa la dhisay wax walba meel laga bilaabay lahayd iyadoo markaa wax dhisan yihiin ayaa mar qura halka lagu joojiyay waxaana markaa aan filayaa dhagaxtuur baa markaa ninka la yiraahdo gudoomiye dhagaxtuur hadda agaasimo guuda ayaa markaa ahaa duqa magaalada loo doortay iyo shaaweey ku xigeen waxa laakiin markii halka ay ku joogsatay magacaabistii waxa la magacaabay gudoomiye tartan ayaa magacaabis ku yimi laakiin 69kii markaa waa baxeen marka waxaan ka wadaa marka maqaamka xamar la raadinayo wixii ay soo martay maqaamka xamar iyo waxa ay tahay ayaa wanaagsan ummadda shacabka inay ka wada hadasho laakiin baarlamaanka waxaan uga fadhinaa iyaga laftigoodu inay ilaa muddada waxay jireen ay dib u eegaan waxa maaragtay looga doonayaan inay eegaan marka waxaan qabaa waa arkay dad badan anaga cabashadana soo gaarsiiyay arinta gobolka Banaadir waan jeclaan lahayn inay haddii suurto galaysana duqa magaalada gudoomiyaha inaanu isaga laftigiisa arintaas aanu talo wixii aanu hayno aanu khasino iskana aragno marka arrimaha wax ku saabsan yihiin anagu talo xaran soo jeedina baanu nahay ummadda wixii talo oo aan isleenahay waa sax ayaanu soo gudbinaynaa inta kadibna waxa uu ku soo dhaweeyay ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo u akhriyay war saxaafadeedka ay soo saareen saxaafadda
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudaha warsaxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay marxaladda xasaasiga ee dalku marayo ee dhinacyada siyaasadda amniga wadooyinka xiran khilaafaadka ama isfaham la'aanta ka dhaxayso dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada barnaamijka doorashooyinka ee 2020 iyo 2021 iyo arrin soo shaabaxday dhawaan oo ku saabsan badda Soomaaliya oo ay jirto in 12 nautic mile in laga dhigo ay war noocaasi xuraan aan ku helnay arrimahaasan maanta waxaan rabnaa inaan kaga hadalno warsaxaafadeedkan oo uu xarunta tala soo jeedintu ay ku soo ururisay muddadii ugu dambeysay waxyaabihii dalka ka dhacay walaalayaal dalku wuxuu wajahayaa marxalad xasaasi ah oo kala guur ah waxaana sii dhamaanay xilligii loogu talagalay dawladda federaalka ee ku meel gaarka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay u hartay muddo sanad waxaana hor yaallo qodobo muhiim ah oo udub dhaxaad ay u tahay siyaasadda amniga doorashooyinka 2020 iyo 2021 dacwadda badda oo maxkamadda caalamiga taalo dib u eegista dastuurka iyo qodobo kale oo muhiim ah haddii aan ku hormarno siyaasaddu waxay qaabaysaa oo ay maareysaa amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaana ay sugtaa jiritaanka dawladnimo la'aanteedna waxay keentaa fashil soo wajaha qaybahaasi haddaba waxaa muuqata inaanay jirin qorshe baahsan oo qeexaya arrimahaas aan kor ku soo sheegnay oo dhaqaale leh siyaasad leh doorashooyin leh amni leh oo dhan aan wali muuqan sidii loo maareyn lahaa haddii aan soo qaadano dhinaca amniga nabadgelyada ama amnigu wuxuu furo u yahay jiritaanka qaran kasto la'aanteed ama amni la'aantiina suurtagal ma aha in la xaqiijiyo siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo adeegga bulshada ay u baahan tahay walaalayaal waxaan cilmi baaris iyo daraasayn muddo ku sameynayna amniga dalka iyo waxa qabsoomay ilaa hadda waxaa xaqiiqo ah in muddadii 3 sano ahayd ay dawladda federaalka ee hadda jirta ay si weyn isugu hawshay in ay wax ka qabato dhinaca amniga waxay runtu tahay oo aan la iska indhatiri karin inay jirto ammaan darro baaxad leh oo saameysay guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda dalka oo ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan dad badan ay ku dhinteen dad fara badan oo Muqdisho ku noolna ay walwal badan ka muujiyeen intaa waxaa sii dheer in wadooyinka magaalada Muqdisho ay in muddo xiran yihiin una dib badan ka jiro isu socodka dadweynaha ee laga xayiray wadooyin kala duwan iyadoo mararka qaarkood ay dhacdo in haween ay heli waayaan in ay isbitaalka gaaraan oo ay wadooyinka ku dhalaan dhinaca kale waxay waxyeello baaxad leh ay ka jirtaa dhinaca ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha wax dhigta oo iyaguna mar haddii wadooyinka intooda badan ay xiran yihiin dhibaato badan kala kulma waxaa iyadana xusid mudan in dhaqaalihii ganacsiga oo ku tiirsanayd magaalada Muqdisho in uu hoos u dhacay kadib markay wadooyin kala duwan oo magaaladu ay xirmeen iyadoo magaaladu ay ka muuqato dhaqaale xumo dhinaca dadweynaha maciishadu ay marba marka ka dambayso ay ciriirisi galayso waxaa iyadana xusid mudan in la xuso in muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsada ay bixiyaan canshuurtaasi oo ay dawladda dhexe iyo dawladda hoose intaba ay ka qaadaan dadweynaha hase yeeshee baahiyooyinka muhiimka ah ee ay qabaan ganacsatada ama ay qabaan muwaadiniinta kale ee ku nool magaalada Muqdisho in aanan ilaa xad aanan la kafaalo qaadin waxaan aragnaa in nadaafadu magaaladu ay aad u liidato waxaan aragnaa in wadooyinka magaaladu ay in badan oo kamid ay burbursan yihiin waxaasoo dhan waxay ahayd in dawladda hoose ee magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo dawladda dhexeba in arrintaasi iska xil saarto walaalayaal waxa xaqiiqo ah oo muuqata in xukuumadda dhexe aanay haysan ama aanay lahayn qorshe kaabaya ama qorshe wax ka qabanayo dhinaca amniga iyadoo aanay jirin isla xisaabtan dhinaca amniga waxaana marar badan dhaco in tacsiyo kaliya lagu koobo oo aanay dadka dhibaatadu ay soo gaartay amaba aan laga sii taxadirin inaanay dhicin dhibaatooyin kuwaas la mid ah
oo aanay dhicin mas-uuliyadda in layskula xisaabtamo hadday noqon lahayd wasaaradaha amniga hadday noqon lahayd ciidamada cid kasta oo mas-uulka ah dhinaca amniga in aan lala xisaabtamin taasna waxay muujisay inay iska noqotay wax caadi ah in loo tacsiyeeyo lagana gudbo haddii aan soo qaadano doorashooyinka intaana doorashooyinka waxaan ka tegey in muddo aad u gaaban in taliyayaashii ciidanka booliiska militariga nabad sugidda intuba oo 4 mas-uul ama 4 taliya mid walba booliiska 4 taliya nabad sugidda 4 taliya ciidanka militariga 4 taliya intuba in muddo gaaban lagu bedelay oo xilka looga qaaday iyadoo aanan la fiirin way aragnimada iyadoo aan la fiirin tayada iyo wixii qaldan ee si fudud xilalkaasi muddo 3 sano ah ay isu badbedeleen min 4 sarkaal oo taliyaalka ah booliiska nabad sugidda iyo militariga taasna waxay ka mid tahay dhaliilaha aan dhahnay oo aan u aragnay inay tahay midda aan kaabayn oo aan wax ka tarayn dhinaca amniga waxaa jira in la qorsheynayo doorashooyinka 2020 shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo 3 ilaa 4 Juun 2018 waxa lagu heshiiyay in habka doorashada dalka ay noqoto nidaamka matalaada isu dheelitiran ama nooca liiska xiran proportional representation closed list yu ahaa golaha shacabka ee federaalka waxay magacaabeen guddi ka kooban 15 xildhibaan si ay dib u eegis ugu sameeyaan sharciga doorashooyinka oo markii hore ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha guddiga dib u eegista sharciga doorashooyinka loo xil saaray waxay baarlamaanka dib ugu soo celiyeen 24 bishii November 2019 si xubnaha golaha baarlamaanka ay uga doodaan iyadoo dood dheer kadib oo maalmo qaadatay lagu ansixiyay sharciga doorashooyinka loona gudbiyay aqalka sare ee hadda ay hor yaalaan sharcigii doorashada iyadoo markii hore ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen doorashadaas xiran ayaa sida muuqata gaar ahaan qodobka 11aad ee nidaamka doorashooyinka loo bedelay habka loo yaqaano horeeye guuleyste waa first past the post oo ah FBTB ama matalaada kuraasta baarlamaanka ee aqlabiyadda ah majority system nidaamka la yiraahdo iyadoo kii hore oo proportionalka ahaa ama isu dheelitirka ahaa ee liiska xirnaa laga gudbay horena ay dawladda dhexe iyo dawladda maamulada ama xubnaha ka ah dawladda federaalka ee maamul goboleedyadu ay ugu heshiiyeen waxaa hubanti ah inkastoo aqalka sare leeyahay matalaada dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka haddana waxaa maamuladu cadeeyeen inaanan lagala tashan nidaamkan cusub ee baarlamaanka uu gudbiyay kuraasta aqlabiyadda baarlamaanka iyo habka ay doorashooyinka 2020 ay noqon doonaan waxaa hubanti ah in waqtiga haray iyo howlaha dhiman ay isqaadan karin ama isu dheelitirnayn baaxadooda marka la eego dhinaca nabadgelyada diiwaangelinta oo rasmiga ah iyo goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan sidoo kale waxa uu khilaaf ka jira heshiiskii ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada hore ay isugu afgarteen ee ku saabsan soo saaridda shidaalka batroolka taasoo maamulada qaarkood ay ka biyo diideen khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada in muddo waxaa sii kordhaya khilaafkaas waxaana muuqato in ay kala sii fogaanayaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubinta ka ah maamulka federaalka iyadoo aanay jirin wax xiriir ah oo wada shaqeynayd oo muddooyinkan dhaxsaday maamulada qaarkood iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi waxay keeni kartaa inay hakiso geedi socodka dawlad wanaaga good governance haddii aan la helin wax xal ah oo ku saabsan sidii caqabadaasi meesha looga saari lahaa si loo hiigsado doorashooyin ka hirgala dalka iyo isbedelo la taaban karo oo uu guud ahaan dalka ku talaabsado xag amni kobaca dhaqaale iyo horumarinta bulshada sida aan la socono dib u eegista dastuurka waxaa u xil saaran wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee hirgelintiisa u xil saaran iyadoo ay dadaal wanaagsan ay muujiyeen labadaasi guddi aan kor ku soo xusay ayaa haddana waxa uu ugu jiraa hakad qodobka 54aad iyo qodobka 122aad ee laga sugayay dhinaca dawladda dhexe ama xukuumadda in ay wada xaajood
ay kala samayso maamul goboleedyada iyo dowladdu ay ka wada sameeyaan si loo dhammaystiro meelna loo saaro dastuurka. waxaa iyadana xusid mudan oo muhiim ah oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah u leh arrinta ku saabsan badda. sida aad la socotaan walaalayaal, badda waxa ay dacwad ka jirtaa Hague, maxkamadda adduunka oo dowladdan ka horeysay ay dacwad u gudbisay maraaxil kala duwan soo maray. waxaan rabaa inaan xuso inay taariikhdu qorayso oo ay qeexayso qawaaniinta u degsan badda Soomaaliya in ay Soomaaliya leedahay 200 oo nautic mile cabirkaasi oo shuruucda soo baxday sanadkii 1973 ay dowladdii kacaanka ee Allahu naxariisto Maxamed Siyaad Barre ay soo saartay iyadoo awoodda ama dalalka awoodda ugu awoodda weyn ay marar badan isku dayeen inay wax ka bedelaan hase yeeshee sharcigaasi dowladdu ay ku adkaysatay taasoo Soomaaliyana ay xaq u leedahay inay lahaato 200 oo nautic mile. waxaana soo gaaraya xuraan aanu ka helayno dadka dhexdiisa oo tilmaamayo in xusul dub loogu jiro sidii cabirkaasi badda wax looga bedeli lahaa oo looga dhigi lahaa 12 nautic mile. haddii ay taasi dhacdana waxay dhibaato badan ay ku noqon doontaa oo ay wax u dhimi doontaa ama ay dhaawac ku noqon doontaa go'aanka maxkamadda ay Soomaaliya ka sugayso. waxaanan soo qaadan karnaa qareennada Muna Sharman oo ka hadashay arrintaasi oo soo daabacday qoraal ay arrintaasi kaga hadlayso. waxayna tilmaantay in haddii badda laga dhigo 12 nautic mile ay ku adkaan doonto dadka iyo dowladda Soomaaliyeed in arrintaasi ay dhibaato ay wajihi doonaan oo xitaa wax ka bedeli karto xukunka ku saabsan badda Soomaaliya ee yaalla Hague. walaalayaal, markii aan qeexnay qodobadaas kala duwan waxaa noo soo baxday in aan annagu maadaama aan nahay xaruntii tala soo jeedinta aan u jeedino talo arrimahaasi wax looga qabanayo hadday tahay xukuumadda, baarlamaanka iyo maamul goboleedyada intaba. si ammaanka wax looga qabto waxaan soo jeedinaynaa arrimaha soo socda. xukuumadda federaalka waa inay la timaado qorshe cad oo qeexaya sugidda amniga oo ka duwan kuwii hore, xaqiijin karana in dadka Soomaaliyeed ay helaan amni iyo xasilooni ay ku kalsoonaan karaan. 2 in shaqada sugidda amniga loo daayo hay'ad kaliya sida ciidanka booliiska Soomaaliyeed si loogula xisaabtamo mas'uuliyadda amniga. in la tayeeyo loona dhammaystiro wixii agaba oo ay u baahan yihiin iyo sarqaadida xirfadooda ciidannimo ee ay waliba ugu muhiimsan tahay dhinaca xuraanka ama intelligence. in door wax ku ool ah ay ka qaataan sugidda amniga maamulka gobolka Banaadir isla markaasina loo diyaariyo dadweynaha qaab ay nabadgelyadu kaga qayb qaataan oo la yiraahdo community policing. in mas'uuliyadda ama mas'uuliyiinta kala duwan ee u xilsaaran amniga lagula xisaabtamo xil gudashadooda iyadoo loo madax bannaan inay gudashada xilkooda hase yeeshee ay noqoto mid xisaaba oo cid kasta oo xilkaasi gudan weysa lagula xisaabtamo. qodobka 7 si loo xaqiijiyo meelmarinta doorashooyin guud ahaan dalka ka dhaca waxaa lagama maarmaan ah in wixii khilaafa ee jira ee ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka lagu dhameeyo wada hadal. xarunta tala soo jeedintu waxay isku howli doontaa in ay tagto maamul goboleedyada isla markaasina ay dhagaysato dareenkooda ama wax ay tabanayaan si sidaasi la mid ahna ay dowladda madaxdeeda federaalka ay la kulanto si ay isugu soo dhaweyso oo ay arrintaasi u noqoto looga furo wada hadal. ma aha in la sugo dad ajaanib ah ama la sugo beesha caalamka la yiraahdo oo mar walba ay noqonayso in markaasi amar laga qaato. hase yeeshee xaruntu waxay soo jeedinaysaa in maamuladana ay ka soo durkaan meesha ay maanta taagan yihiin isla markaasina dowladda federaalka oo mas'uuliyad taas ka weyn ay saaran tahay inay wada hadalku ay iyadu lafteeda qayb ka qaadato. qodobka 8 dowlad goboleedyadu waxaan ku adkeynaynaa inay soo dhaweeyaan talaabo kasta oo abuuri karta jawi nabadeed oo ayna ogolaadaan wada hadal dhexmara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah maamul goboleedyada. beesha caalamka waxaan u soo jeedinaynaa inay door mug leh ka qaataan wada hadal ay yeeshaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka. waxaana ka saaran mas'uuliyad gaar ahaan ambassadorka ama safiirka qaramada midoobay u fadhiya ee wakiilka xogeeyaha guud ambassador James Swan. qodobka 7 go'aanka gaaridda arrimaha badda Soomaaliya oo taabanaysa muwaadin kasta oo Soomaali ah kuwa hadda nool iyo kuwa iman doona ama dhalan doona marna
waxaan tala ahaan ku soo jeedinaynaa haddii aan nahay xarunta tala soo jeedinta in aan lagu degdegin wax ka bedelidda 200 ee nautic mile oo Soomaaliya ay xaq u leedahay muddana ay lagu difaacay mabda'as waxaan ka digaynaa in go'aanka 12 mile looga dhigayo taasoo ay suurtagal tahay in ay saameyn ku yeelato go'aanka hor yaalla maxkamadda adduunka si loo dhameystiro dastuurka waa in xukuumadda dhexe ay wada hadal dhinaca dastuurka oo ay wali harsan tahay in ay la furto dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ee maamul goboleedyada qodobka 12aad si loo helo garsoor cadaalad ah waxaan soo jeedinaynaa oo ay dadkuna ay ku kalsoonaadaan waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo magacaabo golihii adeega garsoorka oo la'aantii aanay howlaha garsoorku dhaqaaqi karin ugu dambeyn dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinaynaa inay dhameystirto dhismaha maxkamad dastuuri ah oo inta waqtiga ugu hare ay isku daydo in ay maxkamadaasi dhisto taasoo wax weyn ka tari doonto dhinaca garsoorka wabillahi tawfiiq aadan idinkaga mahadcelinaya dhageysigii aad dhageysateen dadka shacabka Soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha guud ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka tixraaca wararka ee Som News TV oo aad ka daawanayseen stuudiyiisa magaalada Muqdisho anagoo diiradda ku saarnay war saxaafadeedkii ay maanta soo saareen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed inta aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waa bahda Som News TV iyo anigoo ah Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh howlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerto ay furan idinkuma arkaysid ila adeerto min xilqaaday eed qadiihoy min xilqaaday eed qadiihoy